ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee fadhigooda ee gobolka Badhan ayaa gacanta ku soo qabtay sanaaduuqdii doorashooyinka gobolka Puntland kuwaas oo si toogaysi lagu soo geliyay gobolka Badhan. sanaaduuqdan ayaa waxaa ku guda jiray dhammaan agabka ay ku shaqaan lahaayeen guddiga doorashooyinka komishanka iyo kuwa ay ku codbixin lahaayeen codbixiyayaashan. saraakiisha salga saddex saaga jirjiraad ku qabtay magaalada gudaha Ceergaabo kaasoo ay kaga warbixinayeen meeshii ay ka soo iyo si ay u soo qabteen waxaana hadaladoodii ka mid ahaa deegaan badan oo gacanta ku dhigay Puntland oo badan iyo la sooray agabkaas oo kii loogu talagalay doorashada Puntland taliyaha ururka ka tirsan guutada 93aad saldhigga saddexaad ciidanka qaranka ayaa ma saaka markay ahayd saacadu 9 subaxnimo ayaa meel u dhaxaysa Elbu iyo Badhan oo burinaydaas isku heleen hadday baasadeen muddo isiriyeen gacanta lagu dhigay aniga oo ah taliyaha ciidanka qaranka gobolka Badhan waad ogtihiin bariyahan waxaan ku hawlanayn xuduudaha Soomaaliland oo Puntland ay ku haysay farageliyo haddan ka horna aan uga degnay oo nirnaga daasta waxaan idinaaday marka xuduudkiina ku ekaada saacada laga bilaabana diyaar waxaan u nahay goobalaada goobtii waxyaaliin ay soo galeenba inaan soo qabanno aniga waa taliyaha qaybta gobolka Badhan sida awgeed aad baan ugu hambalyeynaa ciidanka soo qabtay uguna mahad celinaynaa waxa ay mudan yihiinna qaranka ka jawaabi doona hadii la raali ka noqdo. Hadda sanaaduuqdan ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli ay ciidanka qaranka Soomaaliland heegan ugu jiraan ilaalinta amniga iyadoo ay doorashooyin ka soconayaan dowlad goboleedka Puntland. Barkad Maxamuud Geedi, telefishinka caalamiga ee bulsho Ceergaabo.